bismillahi raxmaani raxiim ramadaan mubaarak daawadayaal halkani waa waddanka TV oo aad ku daawan doontaan wararkii ugu dambeeyey caalamka qodobada aan idiin haynana waxaa ugu dooron farmaajo oo war ka soo saaray weerarkii xeebta liido da'da ay dumarka ugu degan yihiin ee nolol lala daadihiyo damacii Mwai Kibaki ee Jubbaland iyo diidmadii Sheekh Shariif taliska booliiska oo soo bandhigay xogta qaraxii liida iyo khasaaraha iyo halkee ku dambeeyeen ciidamadan manaxayaasha ah ee guutada Soomaalida loo yaqaano qodobadaasi qodobo kale ayaad waddanka ku daawan doontaan taariikhdan waxa ay ku beegan tahay 23 April sanada 2022 iminkana u diyaar garooba iyaga oo fidsan aynu ku bilowno marka hore madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa si kulul u cambaareeyay weerarkii xalay lagu qaaday hoteelka ay ku shirsanayeen mas'uuliyiin ka tirsan dawladda isagoona ku tilmaamay weerar bahalnimo ah farmaajo ayaa ugu tacsiyeeyay dadkii shacabka ee ku dhintay weerarka xeebta liido halka kuwii ku dhaawacmay uu u rajeeyay inuu alla bogsiiyo waxa uuna laamaha ammaanka iyo ciidamada faray inay muujiyaan feejignaan dheeri ah xilligan lagu guda jiro tobanka dambe ee bisha Ramadaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo si kulul u cambaareeyay weerarkii argagixisay ee lagu qaaday mas'uuliyiin iyo muwaadiniin kale oo ka afurayay xeebta liido ayaa tacsi tiiraanyan leh u diray ehelka iyo qaraabada dhammaan muwaadiniintii ku geeriyooday weerarka arxandaradaha madaxweynaha ayaa tilmaamay in iyada oo lagu guda jiro tobankii dambe ee bisha barakeysan ee Ramadaan ay qaraxaan bahalnimada ah ee argagixisadu la beegsatay muwaadiniin Soomaaliyeed ee aan waxba galabsan uu muujinayo ficilada gumaadka ah ee ay ku hayaan shacabka Soomaaliyeed iyo sida ay u banaysteen dhiigga dadka muslimiinta ah ee Soomaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa muwaadiniinta ku geeriyooday qaraxa alla uga bariyay inuu hoygooda ka yeelo jannatul firdawsa waxa uuna caafimaad degdeg ah uu u rajeeyay muwaadiniinta kale ee dhaawacmay wahagaag hablaha 30 ilaa 40 jirka ah ogaada habluhu waxa ay ugu caqli badan yihiin marka ay ku jiraan cimriga ma bayna 30 wa 40 da'adan wahayin xasilan cagahana dhulka ku haya dib u dejin rasmi ah ay rabaan oo gurigooda ay IDB ku yihiin waxa ay ka daaleen su'aasha islaamaha ee weli ma joogtaa ta asxaabta ee heblaayo waqti ayaa kugu socda shukaansiga ragga cusub teleefonkaaga ii sheegaya barashadooda 40 wixii ka weyn miya buuqa ayaaba u bilaabma waa xilliga ay da'da isdiidsiyaan wax kastaana isku dhiririyaan heblaayo waanu isla ekeen hebel wuu iga weynaa 20 jir wixii ka yar waa caruur ragga wixii 500 GB maskaxdoodu tahay ee buuqaadi kara ayay ku soo baxayaan 20 ilaa 30 jirka wixii u dhaxeeya calafkooda ayay eryanayaan oo dhuumaalaysi la ciyaaraya waa marka ay adeegsadaan siyaasadda kunka hadli kowna ka raac ma yaqaanaan waxa ay nolosha ka rabaan dhammaantood waxa ay raadinayaan nin qurux badan lacag haysta wanaagsan waxbartay aan dumar kale eegin naxariis badan hooyadii dhimatay six bag leh xaraga badan daanyeer ah waqti haysta caan ah liis dheer ayay sitaan dooqaana ka halaaba kadib kana la eeg ayuu waqtigu kaga dhacaa wahagaag madaxweynihii saddexaad ee dalka Kenya Mwai Kibaki ayaa geeriyooday isagoo 9 jir ahaa Kibaki ayaa xilka madaxtinimada Kenya hayay intii u dhaxaysay 2000 ilaa 2012 Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in Kenya ay gashay baroordi qaran ilaa inta laga aasay madaxweynahoodii hore Mwai Kibaki oo muddo 44 sano ah ku guda jiray arrimaha siyaasadda kuna helay magaca iyo waliba mansabka uu la dhintay haddaba Kibaki oo saameyn ballaaran ku lahaa arrimaha siyaasadda Soomaaliya maadaama uu ahaa madaxweynihii juhriga geliyay kamir dhalinta in Soomaaliya yeelato dawlad ku meel gaar ah oo lagu soo dhisay Embagadi 2004 taasoo madaxweyne lagu doortay Cabdullaahi Yuusuf Axmed Mwai Kibaki ay Soomaalida ku xasuusan doontaa inuu aabbo u ahaa hanaanka federalismka ee Embagadi ee lagu soo dhisay 2004 Etoobiyana ee ku gacan siisay nidaamkaasi oo ilaa hadda ay ku dhaqanto Soomaalida oo awood qaybsi ay ku qaybsadaan xilalka sare ee dalka waxa kale lagu xasuusan doonaa in gudaha Soomaaliya uu soo galiyay dabayaaqadii 2011 ciidamadiisa isagoo marmarsiyo uga dhiganaya inay dalkooda ka difaacayaan kooxda shabaab howlgalkaasi oo loogu magac daray ilaalinta dalka wuxuu xilligaasi hadalkii uu jeediyay u diiwaan gashan inuu yiri waxaan caalamka u sheegaynaa inaan duulaan ku ahayn Soomaaliya hase ahaatee madaxweynihii xilligaasi Shariif Sheekh Axmed ayaa si cad uga hor yimid una sheegay Kibaki iyo xukuumaddiisa
inuu diidan yahay soo gelitaanka ciidamada Kenya ee gudaha Soomaaliya. Sababta uu Shariif xilligaasi u diidanaa in ciidamada Kenya ay soo galaan Soomaaliya ay ahayd inuu ka hortago qorshe ay rabtay Kenya oo ahaa in ay gobollada Jubbooyinka ka dhisto maamulka Jubbaland oo ay Kenya u aragtay inay danaheeda ku fushato difaacna uga dhigato dhibaatada iyo weliba qarlaasaha amni ee ka jiray Soomaaliya. diidmada Shariif iyo weliba shakiga uu qabay waxaa ku raacay oo ku taageeray ra'iisul wasaarihiisii xilligaasi Cabdiweli Cali Gaas oo sheegay in Kenya iyo Soomaaliya aysan gaarin heshiis ogolaanaya in ciidamada Kenya gudaha ay u soo galaan Soomaaliya. taariikh madow ayay noqotay 28 Sebtembar 2012 markii gudaha Kismaayo soo galeen ciidamada Kenya oo ay horkacayeen maleeshiyadii Axmed Madoobe oo xilligaasi hogaamin jiray xoogagii maxaakiimta ka go'ay oo la magac baxay Ras Kamboni. aakhirkiina Kismaayo lagu aasaasay maamulka Jubbaland ee Axmed Madoobe hogaaminayo. hase ahaatee soo gelitaankii ciidamada Kenya kadib waxa ay si buuxda ay uga mid noqdeen howlgalka ciidamada AMISOM ee xilligani isu beddelay ADMIS, kuwaasoo dhibaatooyin kala duwan ka geystay gobollada Jubbooyinka, iyagoo burburiyey hanti Soomaaliyeed, dil iyo duqaymo sharci darro naxariis daran ay ka fuliyeen gobollo Soomaaliya ka tirsan. waxaa kaloo sabab iyo weliba mahada ku noqotay in ay ilaalin waayeen darisnimo wanaagga iyo madax bannaanida dhuleed ee Soomaaliya. aakhirkiina lugaha qabsaday Soomaaliya ilaa ay ku sheegtaan baddeenna iyo dhulkeenna si sharci darro ahna ay qayb ka mid ah baddeenna loogu xukumay, balse Soomaaliya ku qanacday go'aanka maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ. doorashadii madaxweyne Farmaajo kadib waxa ay Kenya weliba faragelinteedii xoogaysteen, iyadoo ka faa'iidaysanaysa maamul goboleedyada qaar in ay si qaawan oo ka baxsan xeerka caalamiga ah arrimaha gudaha Soomaaliya, taasoo dhalisay in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku eedeeyo in ay faragelin aan gambasho lahayn ku hayso Soomaaliya, gaar ahaanna maamulka Jubbaland. dowladda madaxweyne Farmaajo oo tallaabadaasi ka jawaabaysa ayaa xiriirkii u jartay Kenya, waxa ayna cunaqabateyn ganacsi saartay Kenya iyadoo joojisay qaadkii ay keeni jirtay Soomaaliya. taas beddelkeedana Kenya waxa ay ku dhaqaaqday tallaabo kasta oo ay ku carqaladaynayso dowladda curdunka ah ee Soomaaliya iyo madax bannaanida dhuleed ee dalka, laakiin looga guulaystay dhinac walba. wahagaag afhayeenka booliiska Soomaaliya Cabdi Fitaax Aadan oo faahfaahin ka bixiyey qaraxii ka dhacay xeebta Lido ayaa sheegay in uu fuliyey qof naftiis haliga ah oo soo xirtay jaakada qaraxyada. sidoo kale afhayeenka ayaa xaqiijiyey dhimashada 3 qof iyo dhaawacyada 8 kale oo ka dhashay qaraxaasi, isagoo meesha ka saaray inuu jiray weerar toos ah oo ka dambeeyey qaraxaasi. afhayeenka booliiska ayaa sheegay qofka isqarxiyey in ay u suurtageli weysay inuu gudaha u galo hoteelka, isla markaana uu ku qarxay bannaanka hoteelka oo lagu magacaabo Pescatore kuna yaala inta u dhaxaysa hoteelada Beach View iyo weliba Ocean View ee xeebta Lido. qaraxaasi waxaa ku dhintay ilaa iyo 3 ruux, waxaana ku dhaawacmay ilaa 8 kale oo ay ku jiraan ciidamada ammaanka. waxaana bulshada u xaqiijinaynaa in goobtii ay hadda tahay mid ammaankeedu sugan yahay. waxa uu sheegay in la soo badbaadiyey dhammaan mas-uuliyiintii ku sugnayd hoteelka, isagoo aad u ammaanay ciidamada ammaanka oo sida uu sheegay fashiliyey qaraxaas oo qofkii isku soo xiray uu doonayey inuu gaaro goob mas-uuliyiin badan ay ku sugnaayeen. ugu yaraan 10 xildhibaan oo beesha dhulmahante ka soo jeeda, taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya iyo siyaasiyiin uu ku jira hogaamiyihii hore ee maamulka Khartoum State Maxamed Yuusuf Jaamac Indhasheel oo ka soo wada jeeda beeshaasi ayaana ku shirsanaa hoteelka. dhanka kale adeega gurmadka degdega ah ee Aamin Ambulance ayaa warbaahinta u xaqiijiyey dhimashada 6 ruux iyo dhaawacyada tiro kale, waxaana weli gudaha hoteelka ka dagaalamayay dhowr saacadood rag hubaysan, balse booliiska ayaa soo bandhigay dhimashada 3 ruux, taas oo shaki badan gelisay tirada khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay weerarkaasi. ugu dambeynna wararka ka imaanaya aagaga kala duwan oo ka tirsan dalka Ukraine ayaa sheegaya in ciidamada Ruushka ay wadaan duqayn aan kala joogsi lahayn iyo qabashada goobo hor leh. saraakiil Ruushiyaan ah ayaa sheegay in hadafkoodu yahay qabsashada koonfurta Ukraine iyo furidda marino muhiim ah oo dagaalada ku xirmay, balse inta aan u sii daadegin wararka kale ee Ruushka iyo Ukraine aan eegno halka ay ku dambeeyeen ciidamada manaxayaasha ah ee loo yaqaano guutada Soomaalida Somali Battalion
oo ah garab milatari oo ka tirsan jabhadda ka dagaalanta gobolka Donetsk ee bariga Ukraine. Guutada Soomaalida ee Ruushka taageero waa cutub milatari kana tirsan isbahaysiga magaciisa loo soo gaabiyo DBR oo ka jira gobolka Donetsk. Wararkii ugu dambeeyey ee laga helaya bariga Ukraine ayaa sheegaya in guutada Soomaalida la arkayay iyadoo dhowaan calamo iyo weliba ubaxyo ay ku soo dhoweynayaan dadweynaha gobolka Donetsk, iyagoo markaasi ka yimid dhanka magaalada go'doonsan ee Mariupol. waxaana la rumaysan yahay in ay qayb ka ahaayeen ciidamada Ruushka ee dhowaanahan hareeyey magaalada Mariupol. Muuqaal baraha bulshada lagu baahiyey ayaa la arkayey ciidamadan guutada Soomaalida Somalia Battalion oo wata tiro gawaarida dagaalka ah, kuwaasoo dadka dhinacyada wadooyinka safnaa gacmaha u haatinayey oo salaamayey. Wasiirka difaaca Ruushka Sergei Shoigu ayaana ku dhawaaqay in Mariupol ay gacanta ku hayaan ciidamada qalabka sida ee Ruushka. Dhanka kale, qiimayn dhanka sirdoonka oo cusub ayaana lagu xaqiijiyey in milatariga Ruushka ay weerar ku qaadeen dhowr jiho oo cusub oo ka tirsan Ukraine. Shirkad dayax gacmeed oo laga leeyahay dalka Maraykanka ayaana sheegtay in milatariga Ruushka ay geeyeen unugyo cusub meel u dhow caasimadda Kyiv. Sawiradii ugu dambeeyey ayaana muujinayay ciidamada Ruushka oo madaafiic ku garaacaya xaafado ku yaala duleedka caasimadda. Haddaba maxay yihiin ciidamadan guutada Soomaalida ee bariga Ukraine? Waxaa guutadani lagu magacaabaa Somali Battalion. waa garab milatari oo ka tirsan jabhadda ka dagaalanta gobolka Donetsk ee bariga Ukraine. jabhaddan waxa ay ka qayb qaadanaysaa dagaalka haatan ka socda Donbas ee Ukraine. waxa ay dagaal kula jiraan ciidamada Ukraine. dhammaantood waa muwaadiniin u dhashay Ukraine oo ma jiro qof Soomaali ah oo ka tirsan, balse magacaas uun ayay la baxeen. waxaa horaan guutadani la odhan jiray First Separate Tank Battalion Somalia. waxaa hogaamin jiray taliye la odhan jiray Mikhail Tolsov. waxay isugu yeeraan kooxda manaxayaasha ah, waxaana hogaamiyahoodii Mikhail uu ku dhintay qarax sanadkii 2017 xilli uu ku sugnaa gobolka Donetsk. waxaa la sheegay in guutadan ay tahay mid aad u hubaysan, xitaa waxa ay haystaan gawaarida gaashaaman ee dagaalka, madaafiicda iyo gawaarida xamuulka ee dagaalka. dowladda Ukraine ayaana guutadan ku tilmaantaa koox argagixiso ah oo ay baacsanayaan ciidamada dowladda si la mid ah kooxaha kale ee ku kacsan xukuumadda ee gooni ugoosadka ah. guutadan waxa uu fadhigeedu yahay gobolka Donetsk iyo Mafika. qodobkaasna wuxuu u dambeeya warkii waddanka. inta aynu ka gaarayno warkayaga xigana waxaan kaga tegaynaa guul iyo gobonnimo.